Marka aan joojiyay istighfaarta, waxa i soo weeraray culays adduun deymo fara badanna waa la igu yeeshay. Bismillaah, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soo dhawaada walaalaha qaaliga ee ku xiran janalkeena iyo walaalaha cusub ee nagu soo biiri doonaba gacmo furan ku soo dhawaada. Khayrka saa u soo jeclaateen Allah idin jeclaado, inteena xanuunsan Allah caafiyo, inta muraadka leh Allah muraadkooda macsileen Allah u sahlo, inta awlaad raadiska awlaad baari Allah siiyo, inta xabsiyada ku xir Allah ka soo deeyo, inta culaysidii dulmiga lagu korhaayana Allah ka dulqaado yaa Rabbi yaa Raxmaan aamiin. muraadkeena iyo muraadka muslimiinta ba Allah sahlo. aan ku wada sallina nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانه وتعالى وحنا ليه ولا لها قاليه ودعوني أستجب لكم. مركا أن برنو ذكر إلهي بريدي قيام الليل حوق لذا صلي النبي دعوينك إن شاء الله أن بدنو إلهي أكتس وحبلغ موعنا يكليح عن قلنا الضوامات تائبين إلى أطوبت كينو إله ونقضو إلهينا كاشد مروال بإذن الرحمن. sidaa ciwaankeena ku soo aragteen waxaan ka hadli doonaa qisaskii laga arkay istighfaarta iyo fawaa'ideeda iyo fadliga ay leedahay istighfaarta. sidoo Allah subhanahu wa ta'ala nagu leeyahay aayadaha quraanka ah faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. markaan istighfaarta joogteeno waxyaabo badan oo culays oo haysta ayuu Ilaahay noo sahlayaa. awlaad la'aan intii awlaad ayuu Ilaahay ku siinaa, intii culays iyo deymo iyo maal la'aan hayso Ilaahay faraj khayr qaba ayuu ku siinaa, intii qurbo kale ay haysatana Ilaahay qurbada ugu fiidayaa. xitaa hadaa xanuunsan tahay oo istighfaarta badiso u niyeysato waa ku caafimaadaysaa insha Allah. qisadeena ugu horeysa maanta waxa ka sheekeynaya waa wiil. waxa uu leeyahay qisadeeda ayaan idinkaga sheekeyn doonaa wallaahi aniga oo waxba ku dareenin waxna ka dhimaynin. wuxuu leeyahay qisada tan sidan ayay ku bilaabanaysaa. waxa xanuunsatay xaaskeyga, waxayna ku xanuunsaneed xanuunkeeda wuxuu ahaa cudurada dhiiga ku dhaco oo yacni infekshinka dhiiga camal ayaa ku dhacay. aad ayay u xanuunsatay, muddo ayay la xanuunsaneed, markii dambena way socon weysay ayuu dhahay oo xanuunka ayaa dhul dhigtay. kadib xaaskeyga waxay iga dalbatay inaan furo. anigu wuxuu dhahay Ilaahay xaqiisa ayaan u cararay, istighfaartana waa badiyay. maalintiina wuxuu dhahay waxaan ahay qof istighfaarsado 20,000 oo mar. markii ka soo wareegatay ayuu dhahay 3 bilood xaaskeyga waxa ay bilowday inay si tartiib ay ku caafimaadayso. gurigeeda ay isaga soo laabatay alxamdulillaah. ilaahayna waxa uu nagu arsaaqay ayuu dhahay canug. kadib wuxuu dhahay markii xaaskeyga caafimaadday Ilaah awlaadna siiyay, bin aadan ayaa noqday ayuu dhahay oo istighfaarta iyo waa iska iloobay oo muxuu dhahay oo adduunyadeedii kale iska dhaxtiin baday ayuu dhahay. marka kadib waxa uu dhacay ayuu dhahay marka istighfaartii ka haajiray in deymo badan la igu yeesho. deymo fara badan ayaa la igu yeesho uu dhahay. mushaarkeyga dhan iyo lacagta isoo galayso bishana waxay 3,000 oo riyaal bas. kadib wuxuu dhahay markii adduunyada igu cakirantay lacag yari faqri deymo Ilaahay uu imtixaamo wuxuu dhahay xaaskeyga ayaa waxay isoo xasuusisay ayuu dhahay istighfaarta. kadib waxaan bilaaway uu dhahay aniga xaaskeyga waxaan bilawnay inaan istighfaarsano. marka aan wadnay muddo ayadana 3 bilood oo xariir marka aan wadnay istighfaarta wuxuu leeyahay wiilkan alxamdulillaah. wuxuu yiri waxaan galay ganacsi, meel ayaan deen ka soo qaato dhahay ganacsi ayaan ku bilaabay. ganacsigina wuu ii bulaalay oo wuxuu dhahay muddo bil gudaheeda ayaa waxa soo gashay ayuu dhahay 36,000 oo riyaal, meeshii ay 3,000 bas ahayd dakhliga soo galay way 2 laab way dhaaftay oo 3 laab way dhaaftay ayuu dhahay. marka alxamdulillaah muddo bil gudaheeda ayaa waxa ugu soo galay dhahay 36,000. marka wuxuu leeyahay alxamdulillaah Ilaah ayaa mahad iska leh. laakiin wuxuu dhahay maalkii markuu iga farabatay waxa iloobay uu dhahay istighfaarta hadane. wuxuu dhahay safar iska galay noloshii yacni adduunyo iska dhex dabaashay
wuxuu dhahay waxaa noqday qof kale inta markuu ilaahay faraj ii furo oo lacag fiican aan helay ayuu haddana wuxuu dhahay aniga aan noqday qof caasi ah. kadib wuxuu dhahay ilaahay hantidii wuu iga qaaday oo waxaan ku soo noqday ayuu dhahay booskeygi. kadib hadda wuxuu leeyahay markii uu Allah si fir iga dhigay oo gacanteeda gacan maran ay noqotay ayaa haddana wuxuu dhahay Allah u soo noqday. hadda alxamdulillaah waxaan ahay qof ku xiran istighfaartana waxaan u arkaa ayuu dhahay inay wax kasteentaba xal u tahay nolosheyda oo dhanna waxaa nuurisay istighfaarta. markii aan istighfaarta joojiyeen imtixaanaad fara badan ayaan la kulmay ayuu leeyahay. markii wuxuu leeyahay qisadeydii waa taa aniga oo waxba ku darin waxba ka dhimin. haddana waxaan ahay uu leeyahay qof yacni ilaahay u istighfaarsado mar walbo. alxamdulillaah. wuuna leeyahay idinkana waxaan idinkula talinayaa inaa istighfaarta joogteysaan. qisada kale waxaa ka sheekeynayso gabar waxay leedahay waxaan ahay gabar mar walba istighfaarsato laakiin waxay dhahday soonkii markii la gaaray istighfaarteyda waa sii laabo ugu yaraan maalintiina waxaan istighfaarsanaya ayay dhahday 3000. ilaahay wuxuu ii furay ayay leedahay adduunyadii oo dhan ayaa waxay igu soo qaabishay si dhib yar. wax kasta oo u baahdana waxay dhahday si dhib yar ayaan ku heli jiray. ilaahay baab walba oo wanaag waa ii furay, cilmigii waa ii fududaaday iyo waxbarashada cibaadada waa ii fududaatay. waxaan kaloo xifdiyay ayay dhahday quraanka. umuurteyda oo dhanna waxay noqotay wax iga yaabiyo oo si fudud ku dhaceyso. Allah subxaanahu wa tacaala ay awood u sugnaatay. tiri marka aan la yaabay si kasteento iyo si walba oo ilaahay u baryo in arrimeyga horteyda la keenayo. markii dambe Allah subxaanahu wa tacaala waxaan ka codsaday oo ka baryay ayay dhahday in cumrada igu arsaaqo waliba asagoo xilli roob da'ay ay tahay. waxay leedahay alxamdulillaah isbuuciyo yar kadib kamaba soo wareeganinba ilaahay wuxuu ii fudeeyay cumrada inaan soo aado. kadib waxay dhahday isla roobkii ayaa da'ay dhahday xilliga aan cumreysanay. meeshii ayaa waxay dhahday ilin farxadeed ku ooyay sababtoo ah waxaan dareemay ayay dhahday qof ducadiisa la ajiibay inaan ahay. marka waxay leedahay ugu dambeyntii waxaan idin dhihi lahaa ayay dhahday qalbiyadiina ku xiray istighfaarta ducadana badiya. ilaahay waa kariim waa naxariis badane waxa u baahataan idima waynayo bas kaliya quluubtiina ku soo xaadireen markaad duceysanaysaan ilaahay kariimnimadiisa wanaagiisa iyo raxmadiisa quluubtiina ha ku soo degta ayay leedahay oo ilaahay naxariistiisa u kaliyeela. waxayna leedahay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa nooga baryayaa kulligeenba albaabada khayrka iyo fadliga inuu ilaahay noo furo. qisadan waxaa ka sheekeynaysa waa gabar waxay leedahay waxa aan jeclaa inaan noqdo sekreteeriyada ama xoghayaha mudiirka shaqadeena. dheer iyo geed gaaban waa u fuulay si aan u helo shaqadaasi balse iima suurtagelin. dad badan oo maray iyo wadooyin fara badan oo aan tijaabiyay. markii dambe waxay tiri waxaan u soo noqday Allah subxaanahu wa tacaala oo arrinkeyga aan u soo bandhigtay qiyaamul leyl iyo duco badan oo sujuud ilaahay ku bariyay iyo maxay ahayd istighfaar fara badan oo aan la imaaday darteeda. shaqadii waan helay oo waan ku guuleystay alxamdulillaah ayay leedahay. hooyinkeena halkaas ayay ku egyihiin maanta. waa qowli hada wa astaghfirullaha lii wa lakum wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. wixii aan gafay waxay ka ahaatay nafteyda iyo shaydaan. wixii aan saxayna waxay ka ahaatay Allah xaggiisa. walaalaheena qaaliga ah oo na daawanayana aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin sida aad noo soo booqateen oo khayrka u soo jeclaateena Allah idin jeclaado insha Allah. aan badina salliga nabiga sallallahu alayhi wasallam khayrka salaatul leylka quraan akhriska iyo wanaagana markasteento aan isxasuusino. ilaahay waxaan ka baryaynaa gafkeena iyo geerideena inuusan kulminin. ilaahay waxaan ka baryaynaa khaatimadeena inuu khayr nooga dhigo. kelmadeena ugu dambeysana inay noqoto tawxiid kalimatu tawxiid laa ilaaha illa Allah. ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu khaatimada khayr noogu khatimo biidni raxmaan. ilaahay asaga quluubta gadgadiyo waxaan ka baryaynaa inuu quluubteena ku sugo khayrka iyo wanaaga. ilaahay daacadaha nagu sugo. allahumma yaa muqallibal quluub thabbit quluubana calaa diinik. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. إلهي waxaan ka baryaynaa khayrkii wanaag inuu na tuso oo na waafajiyo wixii xumaana hareer mariyo. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا الاتباع.
اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا الاجتناب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. cimriga iyo waqtiga la nool yahay waa wax yar, waa sanado yar, waa saacado yar, waa sakamo yar. insha allah kheyrka iyo wanaaga uga faa'iidaysano waqtigeena iyo cimrigeena. xillina loo soo jiro iyo goor naftaan ammaanada la qaadanayo ma ogin. ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu daacada nagu dilo oo daacada nagu quweeyo oo kheyrka nagu quweeyo oo iimaankeena nagu quweeyo. iimaankeena ilaahay daciifnimo nagama geliyo. kheyrka iyo wanaaga iyo asxaanka iyo wax kasta oo kheyroon sameynayna status inuu naga noqonin ama status iyo ilaahay ka baryaynaa oo cibaadadeen ay khaalis ay noqoto. aamiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. insha allah walaalaha kaleento ee kheyrka jecel usii sheergareey adinkoo mahadsan. ajarkooda ayagoo laga nusqaamin ayaa la yeelanaysiin haddaa u sheergareyso. insha allah like-tana saara si fiican oo meel fiican uu noogu gaaro kheyrka hadduu ilaah yiraahdo. subscribe-kana saara saa u noqoto qofka ugu horeeya ama walaalka ugu horeeyo ee kheyrka daawada. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. astawdicukum allah alladii laa yudiicu wadaa'icuh.